السلام عليكم kulanti haboon daawadayaal idin lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afriya tobnaad ee taxanaheennii ayaan daran sheekadan waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag qaybtana waxay ku bilaamaysaa sidan ileen asliyay inta gabadha la jecel yahay ee laga dambeeyo waa intay gurigooda joogto waxay canab asli uga sheekaysay rafaadkii ay mudatay muddadii ay gurigooda ka soo tagtay waxayna ku soo dhamaysay iyadoo oo leh jinni baa ii hargalulay aqli xumo baan cidaydii iyadoo la iga jecel yahay oo joog lay leeyahay uga soo kacay canab baa hadalkii wadatay waxayna ku cabatay in ay iminka darin qof kale kula seexato subaxyada qaarkoodna iyadoo hamuuntii qabta ay dugsiga u lugayso mararka qaarkoodna inta jidka soo socoto haddii ay daahdo laga horqadeeyo asli waxay canab u sheegtay in Faaduma tahay qof wanaagsan hase yeeshee ay inta badan shaqo ku maqan tahay oo aanay guriga ka warqabin sidaa darteed waxaa guriga maamusha gabadheeda Luul oo aad ii xilisa haddii aan dacweeyana waxaan ka baqay in la yacirsho sidaa darteed waxa la wixii xumaata ah ee Luul igu samayso dushaan ku rartaa waxba ma aha xukunkaas sida ah waa wixii ii qornaa baa asli nafteedii ku maaweelisay xaaladdu waxay hadba heer soo ahaato waxay asli u dulqaadato dhib iyo hawl tii ugu qallafsanayd una sabiirto waxaa goor fiid ah asli dareentay xanuun markii ay astaamihii sheegtayna waxaa Faaduma ogaatay in ay fooli hayso sidaa darteed waxay degdeg u keentay cusbatalka Martini waxaa loo sheegay in aanay berrito ka hor dhalayn sidaa darteedna intay seexisay ayay ka tagtay subaxnimadii asli waxaa loo soo gudbiyay qolka dhalmada lagu sugo umulisooyinku intaa way kala ordayaan waxay ku hawlan yihiin daawasiin iyo xanaaneyn haweenka diyaarka u ah dhalmada asli umulisooyinka iyo kalkaaliyaasha orod bay ku dhaafayeen xaggeedana ma ay eegayn waxayna aragtay in daawooyinka lagu daldalayo haween subaxnimadii yimid oo ay iyadu ka soo horeysay asli markii dambe inta ay istiishay oo madaxa sare u soo qaaday ayay ku tiri haweenay umulisooyinkii hore ka mid ah eedo sodad islaam ah ma tihiin maxaa sidaas la igu galayaa ilaa saaka oo dhan baan halkan eeli oo cidna dan igama leh ee maxaa dhacay anigaaba dadka ugu soo horeeyay umulisadii oo magaceeda la yiraahdo xaajiyada waxay asli ku tiri walaal raalli baad naga ahaanaysaa kuwii aabbaha lahaa ee xalaasha ahaa baanan hawshoodii weli dhammaystirin ee adigu xaggeed joogtaa asli hoos ayay u tiri alla mujtamacu u darana gabdhaha sida ilmaha aan aabbaha lahayn bal anigu haddaan gafay muxuu galabsaday ilmahan uurkayga ku jira soo xaq uma laha nolol iyo jiritaan ugu dambayntii waxaa soo gashay dhakhtaradii qaybta umulisooyinka madaxda ka ahayd waxayna warsatay asli sida xaalkeedu yahay asli dhakhtaradii bay u cabatay iyadoo uga warrantay sida loo xaqirayo dhakhtaradii baa xanaaqday waxayna isugu yeedhay kalkaaliyayaashii waxaanay tiri taalayaal dhegaysta maanta waxaad meel kaga dhacdeen qaanuunka caalamiga ee caafimaadka qofka dhakhtarka ah dadku waa u siman yahay mana laha kala soo mar haddii uu dhibaato qabo dhakhtaradii waxay tiri iyadoo hadalkeedii sii wadataa waan la socdaa in asli sido cunug aan aabe lahayn hase yeeshee innaga shaqadeenna ma aha in aan ahmiyadda siino cidda uurka iska leh ee waa in aan gudanno xilka aadamiga ah ee ku dhisan naxariista iyo uturidda qofka gargaarka u baahan waxaanu galnay daawade qaybtii saddexaad ee buugeenna waxay rafaadaba ilaahay asli waa kala keenay waxayna dhibaatadii soo martay kaga daran halka ay aadi doonto iyo jihada ay qaban doonto marka ay cusbitaalka ka baxdo waayo Faaduma horey uga afeefatay in ay asli gurigeeda ku soo noqoto asli waxaa la joofiyay qol ay hurdeen 4 haween ah waxaana sariirteeda tan ku xigta jiiftay gabar haysatay wiil ay ku curatay gabadhaas oo magaceeda loo oran jiray Maryam ninkeedu wuxuu ahaa inaan dhalinyaro ah oo baari ah oo aan har iyo habeen ka dul dhaqaaqayn haweenaydiisa isagoo u keenaya wax alla wixii ay u baahan tahay Maryam waxa kale oo mar walba kor joogay oo u shaqaynayay waxay dalbatana u keenayay waalidkeed iyo ninkeeda waalidkiisii iyo walaalihiis asli cid uma iman hase yeeshee waxay ku caymatay oo ku badbaaday taale Maryam oo wixii loo keeno wax ka siin jirtay
asli markii ay aragtay sida maryan loo xanaanaynayo way hoos ka tiri alla ayaan daranayaa hadda haddii nin xalaal ahi qabi lahaa sidaa oo kale ayaa lay sharfi lahaa. waxay kaloo asli iskula hadashay dhibtan oo dhan cadaawe isaga ayaa ii geystay haddana waxba igama oga oo xarago iyo tumasho ayuu ku jiraa. hal eray oo qura baana ku filnaa si uu ceebka saliim u noqdo. asli waxa kale oo niyadeeda ka guuxayay alla waa mushkilad waxaan sheegan jiray oo dhanbeen bay ahaayeen maanta ayay igu daran tahay. aniga oo qof keliyaata ah baa meel kasta la iga abeeyey la igana karaahiyeystay. bal waa yaabe xag alle xaggee ciirsan doonaa alla ayaan daranayaa. wax yar kadib asli waxaa u yimid kalkaalisadii waxayna weydiisay cunuga magaciisa iyo inaayihiisa. asli way naxday wax jawaab ahna ma bixin. markii kalkaalisadii dibadda u soo baxday baa asli maqashay haweenay kale oo ku leh kalkaalisadii maxaad cunuga asli u weydiinaysay inaayihiisa ma iyada ay gu dhaanta mise waxay kala garan kartaa boqolkii nin ee ay is arkeen. asli aad ay ereygaas uga naxday waxayna ku gunuunuuday alla dadku been iyo waxma sheeg badana maxay dembi gelayaan yaa u sheega in cimrigayga hal mar oo qudha aan gafay. faadumo waxay ka maqnayd asli 2 beri sababo shaqo awgeed. maalintii dambe ayayna u timid iyadoo u wada dhowr qasac oo yooga ah waxayna ku tiri eedda asli waan ogahay mushkiladda ugu weyn ee ku haysataa in ay tahay meesha iyo jihada aad beegsanayso markaad cusbitaalka ka baxdo. runtiina aad baan uga xumahay inaan go'aan kaa gaadhay hase yeeshee ma ahayn mid aniga iga soo fulay. imikana diyaar baan u ahay in aan iijaarka kaa baxsho kuna kaalmeeyo intaad 40ka ka baxayso. anaa la hadlayo dhakhtarrada si ay muddada aad joogtid kuugu sii dheereeyaan. faadumo intay salaantay asli bay gurigeedii dib ugu noqotay. intaasi kadib maxaa dhacay la socdaa wada qaybteena xigta qaybteenan maanta. sheekadana waxaa qoray Dr. Cabdillaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag.